gudubnay iyo qorshaha waxqabad ee 2014 ku qorshaysan iyo xaaladda guud ee degmada. marka hore waxaan salaamayaa tabada saxaafadda gobolka Awdal runtii hawlo badan oo dhinaca degmada aad noogu fududeeya sida isbitaalka degmada Luqayaad oo kale oo dhiskiisa runtii qaybta ugu weyn iyo saxaafadda gobolka Awdal ka qaadatay marka mahad weyn baan aniga hortayni haynaa. marka xigta runtii degmada imka xaaladdeedu aad bay wanaagsan tahay oo waqtiyadii hore waxaa jiray abaaro xoog badan oo dadka dhibaateeyay laakiin maanta waxay joogtaa maalinta ugu qurux badnayd oo aad bay barwaaqo tahay. xaaladdeeda kale ee xagga caafimaadkuna aad bay wanaagsan tahay oo isbitaalka degmada oo aniga maanta dhawada wasiirkuna la joogay aan furnay. runtii waxaan kaga raysanay dadkii had iyo jeer 200 iyo dadkii had iyo jeer la soo qaadi jiray wada la soo mari jiray 210 kiiloomitir oo goorma la keenay oo intooda badan dadkii dhaxalista mooyaane halka wax laga qaban karayo. kullu qorshayaal caafimaad oo imka jiraan oo in MCH-da degmada la kordhiyo boosiyada iyo maxay dadka adeegyada caafimaadka hadda shaqaale tahay in la kordhiyo lagu tali jiro. iyaguna way jiraan oo arrimahan halkan u nimidna bay ka mid yihiin. xaaladda caafimaadku aad u fiican tahay, xaaladda biyuhuna runtii aad bay wanaagsan tahay. degmada inteeda badan biyay leedahay, meelaha way jiraan inta badan in biyo nadiif ah loo helo u baahan oo durdurale laakiinse aad bay iyaduna wanaagsan tahay. xaaladda nabadgelyaduna runtii aad bay u fiican tahay oo wax balaayo kama jirto inkastoo ciidanka nabadgelyada boolisku aad noogu yaryahay laakiin iyaduna way fiican tahay. runtii howlaha degmada kulley wax imikana soo gaadhay oo bilaabmay ma jiraan laakiinse qorshaha la waday imika uu dhow yahay in waqti dhawaad bilaabantana aad baan u rajeynaynaa. waana shay weyn oo waddanka oo dhan lafdhabar u noqonaya haddii uu hirgalo. aniguna runtii haddaan degmo ahaan hil iyo hoobo la garab taaganahay wixii tikada hawl laga galayo. qolada kalluumaysiguna way jiraan oo kuley qorshayaasha ayay noogu jireen meeshii oo badle oo ummad badan ay degan tahay kalluunkii aan wax lagu isticmaalaan lahayn dib weyn baa naga nagu haysay. waxaan hawlgalnay bal sidii loo heli lahaa dee dad ka shaqaysta kalluunkan oo dadkana dee dhaqaale ka soo galo iyaguna dee ka shaqaysta oo ganacsigooda kor u qaada. runtii waxaa noo hirgashay iminka 2 shirkadood inaan helno oo mid maalin dhow aan dhagax dhignay midna dhawaan dhagax dhigayno in ilaa bisha 6 ay arrintaasi ay shaqaysaan oo kalluunka laga soo baxay soo qasaacsan dalka lagu cuno oo rajeynayna deelayna. xagga waxbarashada degmadu xagga waxbarashada runtii inteeda badan way leedahay iskoolada laakiin waxaa jira goobo weli haada aan iskool lahayn oo lagu dhigto waababkii laga sameeyay geedaha. runtii 4 goobood baa ugu waaweynaayo dhibaatadaas ay ka jirtay. xukuumaddan kulley wasaaradda waxbarashada oo kala xiriirnay waxaan rajeynaynaa imika in 2 meelood ahaan in dhismaheega dhawaan la bilaabo. runtii aan wasaaraddana aan mahad weyn ugu jeedinayna arrinta 2 meelood oo kalena inay sanadka gudaheega ay iyadana ku darto waan rajeynaynaa. marka arrintaasna aad bay u fiican tahay waxbarashada aad bay wanaagsan tahay noo qabsoomay haddaan u gudbo. runtii degmadooyin kastoo maxaadinayaan anagu saluugaynay dhinaca dhaqaalaha soo saaristiisa oo dee ciidan boolis oo jirin iyo gaadiidkii degmadoon jirin awgeed ay qabad nagu haysay. haddana howlahan qabanay way jireen. isbitaalka imika degmada aan maanta dhaweyd xadhigga ka jaray wasiirku waxaan tagnay isagoo qabyo ah. runtii daldalgelintiisa aan ka qayb qaadanay iyo qalabayntiisii waana furnay oo maanta uu shaqaynayaa. waxaa kaloo jira gurigii martida Luqayaad oo aad u dayacnaa waqtigii aan anagu tagnay rabeeri baan ku sameynay hadday dheer tahay hadday gudihiisii tahayba oo maanta meel la fadhiisan karo lagu nasan karo iyo noqday. waxaa kaloo jira tuulada Gargaaraad oo ah goobta labaad ee degmada ugu weyn mayna lahayn wax maxay tahay guri martiyada oo dadka hadday madax tahay hadday hay'adda cidii timaada ugu nasato. halkaasna gurigii martiyad baan ka dhisnay maalinta loo yeedna xarig ka jaray haddii ilaahay raado gacanta laga qaaday. waxaa kaloo jiray tuulada Gargaar bari laga hado waxa deganaa IDPs ilaa 150 qof qiyaastiisu ay tahay
qorshayaashan biyagelintu markii hore waxaa loogu talagalay in dadkii tuulada sii deganaa laakiin qorshaha kuma jirin dadka IDPs-ka waxaan ka dadaalnay dadkaas ilaa 1 kilomitir biyaha kasoo doonanaya dameer ay wax kusoo dhaansadaan iyo kariina mina haysan si halka ay degan yihiin ay biyo ugu helaan waxaan ku guuleysanay in 3 taangi loo dhiso inta IDPs-ka 3 qaybood aan kala qaybinay mid walba xaafadii dhexdeedii taangi biyo loo dhigay oo hadda si toos ah u shaqeeya waxaa kaloo u sameynay sanitation-koodii in kiniifyo loo helo iyo tuushashkii 15 kiniif iyo tuushashkoodii wata iyo iyagana maxay dhahay aan dhisnay waxa kaloo jiray solar system tuulada gargaara aan u qaybinay masaajidka iyo MCH-ka oo talaajid ay ka fadhiday waxa kaloo jira wado ay isticmaalaan beeraleyda la yiraahdo mashruuca balay la yiraahdo oo dooxani qabr baxba markii hore ku oodnaa baabuurta oo inay mari jirin inta badan oo degta laga soo guri jiray xabxabka iyo tamaandhada lagu talaabin jiray oo gaariga dhinaca kale jooga loo geyn jiray marka in waxa noo suurta gashay in wada toos bal laga soo baxda oo garbada la imanayso wadada joogta halka ka soo galaysa si buurama ama hargeysa toos u soo baxda inaan sameeyno wadadaasna dhererkeedu wuxuu ahaa 13 kilomitir waxa kaloo noo suura galay idaacadays meesha la yiraahdo wada tagtag oo way ka baxda oo geedkan garawaa uu xidhay waqti hore way banaanay iyadoo waxa noo suura gashay wadadaas inaan furno oo maanta si toos ah loo maro iyo laba haada imikana maxay dhaynay xaalkeedii gacantan kula sii jirno runtii intaasi iyo waxyaabo kale oo badan boo inoo qabsanay intii kala fadhiyadeeda intii anaga nagu filayday ay noo saamaxaysay waqtigeeda waan qaadanay sharci noo dhigay wax dhibo anaga dhexdeeda ka taagan ma jiraan waxaan kaloo fariin kale u diray golayaasha deegaanka ee maanta Soomaaliland ka jira waxa la yiri madaxweynuhu waa kii ogolaaday in dhalinyartu ay ka qayb gasho waxa ugu ogolaanayna waxa ay in maskax cusub iyo waxyaabo cusub wadanka lagu soo kordhiyo laakiin waxaan leeyahay dhalinyarta war inaan ku fashimin arrintaasi oo inaan noqon inuu wax dameer qaado inaan isku qabsano laakiin aan isku qabsano wax qabadka in wax weyn la qabto oo halka la joogo kolba kor looga sii qaado haddii se la yiraahdo maalin kasta golihii deegaanka ee Boormaasaysta kii waxa haysta luqayaadkii bakiba haysta waxay noqonaysaa arrin ay dhalinyartii halkii wax qabad laga sugayay inay moran iyo qayla ay soo kordhiyaan marka waxaan leeyahay ka dhalinyar ahaan aan ka dagaalana arrintaas oo iyadoo de fikirko qofka si sax ah oo fikirka sax ah la isku qabsan karaa wax xaggan u weeyay laakiin habba tanaasulaad inuu batayaan iyadana aan rajeynaya dilka rabaynaan baa maanta aan uga faa'iideysto fursadan waxa jira deewatii abaar badan ay soo dhacday markii roob giday iyadoo aad moodo in dadka ay maanta ka soo kabanayaan dhibaatadii gaadhay waxa haddana ku habsaday dhulkii daaf ka baxay ayaxba ku habsaday oo diyaabayso inta duulaysa inta dhulka socota meesha soo marana neef dambe afka dhulka ma saaray runtii arrintaasina waxay noqotay in dhibaatadii hore dadka haysan inay sii cuslaato qof walba 10 neef oo hadhay isagoo maanta deewada baxsanaysa iyo haddana ay xaasib ka soo gaadho wuxuu ku dhow yahay inuu xaalfiyo deegaanadii lagu noolaan lahaa marka arrintaasi baaq aad ayaan maxay inay ka soo jeedinaynaa haddii ay xaasalka maanta lagu qaban waayana waxa suuragal noqon karta in uu soo baxo dhulka dalagyadu ay ka baxaan gobolada kale iyo waddanka oo dhan inuu ku baaho waxyeelay marka arrintan waxaa leeyahay hay'adaha dawladda iyo kuwa maxalliga ah iyo cid kasta wax ka qaban kartaba si degdeg in looga soo gaadho arrintaasi dhibaatada dadka ku haysan kulli waxa weeyaan dhibimika taagan maalin walbana sii biiraysan oo sii socoto marka arrintan waxaa leeyahay waxa looga qabto warahmatullahi wabarakatuh anoo mudanaatuna kula adeega degmada Luqaya sida uu maayku soo sheegay horta waxaan soo jeedinaynaa hambaliyo dadka saxaafadda gobolka Awdal warbixinta gudoomiyaha uu soo sheegay waa sida uu soo jeediyay degmada Luqaya waa degmooyin ku faana xagga nabadgelyada si kastaba ha u yaraato ciidanka booliisku laakiin haddana wax isqabsiya iyo wax dhalad badan oo ka jira ma jiraan sida kale degmadu waxay ka soo jirtay marxalad dheer oo abaareed aad nafaqadnaa marxaladii abaareed ay soo martay degmadu dadka baa ka haray diiq ku dhamaaday degmaduna waxay ahayd dhulku waa barkunool iyo barkunool bahayd oo dhaqatay u badnayd xoolo way dhamaadeen hadda markuu roobkii da'ay
dee xoolihii cunayay badoo ku noolaan lahaayeen barwaaqadii maanta meesha laga marba degmada waa cimrada laakiin xooli way yaraadeen ninkii 100 neef adhiya lahaa 10 buu joogaa halka dhigta wali way taallaa iyadoo dhig sidaa u taallo waxaa soo biiray oo kale dhib kale oo timiday oo loo yaqaan ayax soo dhibaato weyn ku haya deegaanka waan ka soo hadalnay warbixin ka soo bixinay in insha Allah laga soo jawaabo wax laga qabtay xagga dawladda waan rajaynaynaa waxaan soo codsanaynaa wali nama soo gaarin waxaan codsanaynaa cid kasta oo amba hay'adaha dawliga ah amba dawladda aba in la gurmad dheerada laga soo fidiyo dadkuna tabaalihi abaarta uu wali si qabo roobkii nafcaantii uu u galay una wali helin deeftiisi wuxuu ku heli lahaana uu xayawaankaasi farqul sida xildhibaanadu sheegeen saxaafaddu aad iyo aad bay mahadsan tahay khaas ahaan saxaafadda ka hawlgasha gobolka Awdal aad iyo aad bay mahadsan aad iyo aad noo mahadsan waxqabadku maayku sheegay waa run waxqabad ballaaran ayaan ku tallaabsanay sanadkiina soo dhaafay sanadka cusubna qorshe fiican ayaa noo yaalla oo waxqabad ah run ahaantii waxqabadkan soo qabanay waxaanu gacanteeda ku tagrifallay maaha hay'adaha caalamiga ayaa waxyaabo badan nagala qabtay sida hay'adda World Vision IFAD iyo UNFP aad iyo aad bay hay'adahaasi mahadsan yihiin waxay noqotay xagga amniga run ahaantii degmadu wax amniga ciidanka amniga aad iyo aad buu noogu yaryahay codsiyo badanna way naga gaadheen xagga amniga waxaan leenahay qaybta amniga allanoo soo dedejiyo allanoo tixgeliyo codsigaygaasi naga gaadhay dowladda sare warbaahinta gobolka Awdal iyadoo si wanaagsan noogala hawlgashay dhibaatooyinkii soo jiray ee abaaraha amase xagga waxqabadka dhakhtarka Luqaya intaa kadib kulley de waxaa soo sheegay maayirkii iyo xildhibaanadii kale wixii dhibaatooyin iyo wixii waxqabad ahaa intaasaan kaga baxaynaa xagga degmadana sida xildhibaanka iyo xildhibaanada lagu gudoomiyay sheegeen kulley xaaladdeedu way fiican tahay oo qabadkan soo qabanayna waa ka gudoomiyay sheegay abaaraha soo banayna de kulley moob ka dambeeyo oo xoolihii baa dhamaaday kulley dhibtii moobku geystay xoolihii wixii haray uu moobku dambeeyay kulley wax jawaab oo kale kama hayno xagga ayax haddaan ka hadlo ayax kulley fama baanba ku hayaa dhulka daaqii soo baxay isaga ayaa dhameeyey oo kulley waa la yaqaan ayaxo markaa midna waa ka duulaya midna waa ku intuu soo dhalo kiibaa iminka dilaacay laasay markaa waa wax dhulka saa u socdo waxbaan dhaafayn markaa kulley hay'adaha ku shaqada lena waan u gudbinay inay ka soo jawaabaan oo rajaynaynaa hadalkana gudoomiye xildhibaanadii hooga dhameeyay aad iyo aad baad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.